Soomaalidu waa qabaayil xoolo dhaqata yahayd intii isku qabiilihiiba daaqa iyo biyaha iyo xooluhu waxaa jira communalism waxaa ka dhaxeeyay intii isku qolaaba wax wadaag baa ka dhaxeeyo dhul bay wadaagayeen daaq bay wadaagayeen ceelkay wada qodanayeen haddii wax la soo weeraro geelayga aniga marka la qaado kuwaanu tolka nahay geeloodii baa la qaaday geeloodii ilaa uu naga wada dhaxeeya geeli reer hebel yaa maali jiray wii aqliyadii caynka ahayd oo ku saxa markay biyadeeda joogto halkeeda markay joogto iyo deegaankeeda markay joogto faa'iido ku leedahay waa yani dawlad ma jiro dawlad ma jirto wax la leeyahay iyada dee dawlad ahayd markaas waxa jira wax guud oo qabiilka ka wada dhaxeeyaba ayaa jira oo geelu ka mid yahay oo dhulku ka mid yahay oo dhigta magaca sharafka inka reer hebel wuxuu koolaya waa gabayaageygii buu koolaya mid oo marka cali dhuux laga hadlayo beel baa tirsanaysa gabayaageygii astura markaas loo yeelin ka astura oo wax looga hubiya ilaa afkeeniyo marka wuxuu tirsan isagii qof loo baarkay gabiyo waxa uu arkayaan beesho inuu afkii beesha yahay waayo marka reer hebel u soo gabiyaan ayuu ka waabinayaa waa gabayaagoodii haddii ku roo yahay yani waxaa jira wax markaa beesha ugu wada dhaxeeya oo yani ay ku kala markaa ku ficiltamayaan dawladdu inagoo sidaas baa niman reer Yurub ay dawladdu weyn siiyay waxa wada dawladdan qaata dawladnimada bay tiigeela ku dabaqnay halka ay shartu ka qurbaysaa dawladnimadii baa tiigeel bi'ad dhaqanka isaga ah ayuun baa la yidhi waa kursigeeyay hadda sidii geeliba garaysaa xogeeya wasiirka tacliintu iminka markaa ka hadlayso Jabuuti oo dhan buu yahay ka tujaro jooga iyo ka cali sabiix jooga iyo mid walba waa wasiir haddii qolo tirsato de waxay noqonaysaa mushkil waayo de mar waxba qaran maaha wasiir qaran de markaa maaha yani calankii iyo madaxweynenimadii baa cadi sheegatay ninun badee Soomaali cudub buu ka noqon lahaa cud buu noqday cudii baa waxay u qaadatay kursigan geeloodii mushkiladu halka aqliyada la iskaab kale geelayagii buu marka geelooda ay ilaashanayaan dhagtii hareetaa la iska taagayaa cudii ila geeloodii adigoo wadankii kula dhashay oo hadda kursigan la leh ilaa waa madaxweynenimo imika ana la leh ayuu wuxuu qaatay haddaan kaba hadlo nin shisheeye oo soo falgeliyay geeloodii adu shaqa waxa uu ka yimi muxuu ku hadlayaa inaga joojiya war wadankan ku dhashay war wata Hargeysa ku dhashay oo berigii ilaa awowgii Hargeysa ku dhashay oo halkan aad igu tibo igu qabsatay geelan waxa aad geel adigu haystaa waan kula leeyahay sugaad horta tan u banayd war geelan way laga dhaxeeya iyo ma anaga reebel oo markaas sugaantii iyo cidii kale hatta ka soo horjeedsata sugaanto kaliya maaha waxa ku jirta hatta intellectuals dadka mutacalimiinta ahaa ee dareemay war waxa ma lihidin umada wada leh ayaa madaxa laga fadhiistay marka waxay yiraahdaan halkan ugu dheeraan Afrikada waxay yiraahdaan ugu dheeraan waliba kale baasha geeloodii oo haysan oo taa la yiraahdo baasha ka kaalay miigi oo dawladnimada uusan gaaladu haysato ilaa sidaa loo fahmo sidii gobonimadu say tahay ilaa loo fahmo aburintan iyo cadaadiskan iyo ninkan madaxayga joogsanaya markaan fikradeyda dhiibto hadda mid baa u xanaaqaya miskiin oo baqteeyo oo saydo kala ah oo deema oo baqteeyo oo ka aanu hadlaya ah ayaa olaya madaxweynaha igu soo hada wuxuu ga jeedaa shaqo ku qaracay waxaad war baqteeysa ayaa tabcaan adaan ku hadlaya yani وهالك أي كوجة تعبرينتين وهالك كوجة سجاية العبرين أيوه وحينو سيدنا شيء يلي وروح ما حد كهيسته تحسوا بالكلام مسكين كابختي يفرق كي وياه هيستطيع دولة دي بكرة يقدر مركا فهاش الويس كعبر سلاني سيلاقي المفهوم كان بدلوه لقرتوه حيصير هاي وعبر سلاني ساسوق sababta keenaysa inaad ku tiraahdo caburaada taas xoojiye si keenaysa waxa weey wixii yaani dawladnimadii Afrika ama yaani teena markaan ka soo qadna waxay noqotay wax yar oo dhaqaalaheedii iyo nolosheedii iyo wixii ay kooban yihiin marka ceelkuna miiga ceelku markuu biyo yar yahay ceelkaas biyo yar yahay had iyo jeer horta waxa hor cabaa oo inuu hor cabaa tahay reerkii qotay
reerkii qotay reeraha kale waa inay sugaan waa inay sugaan inta kuwan geeloodu ka cabayo geeskan waa lagu riixaya war baasho annaga mid nagu yartaayo maxaan ku dhahtay geel iyaga ma deeqay u kaadiya baa la leeyahay haydin soo maaxdee marka baasha miilaysiga yara dhaqaalihii yara ruuxeeda ayaa isirdigan